ganacsatada waxay ka hadlaan culays jira oo dhammaantood waxa la sheegay aniga kaliya waxaan ku daraa hadda in culaysku taradii ka batay oo markii canshuurtii la kordhiyey oo dowladda kordhiday ka bacdin culaysyo badan yimaadeen oo dad badan yimaadeen haddana ay taagan yihiin oo kuntaradii la soo fasaxi waayey oo shirkadihii laftigeeda dadkii dallaan noqday ummaddii taradii ka baatay marka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka waxaan codsanaynaa annagu shaqadii waa wadi weynay dekedii waa xirantay waxaan laga wada waxaan annaka awooddan ahayn inaan qaadi karin marka codsigan wuxuu yahay in la farageliyo oo wixii annagu canshuur waa ogon lahay wixii maaliyadda waa ogon lahaa dowladda wasaaradda maaliyadda laakiin dadkan tiradii ka bato qof walba weelka wato in la ka joojiyo hadda lacagtaas waxaan isleeyahay lacag ku dhacayda maahan dowladda laakiin waa dad oo annaka nala mid oo qof dad ganacsataa oo inay waa hawsha wadaan marka annagu codsigan wuxuu yahay in dadkaas la farageliyo si dekadda u shaqaydo si dekadaha kale ganacsigu u socdo si dekadaha kale aan la tartanno codsigaas wadnaa